Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta iftiinshe. Maanta waxaan ka hadlaynaa filim superhero comedy ah oo Maraykan ah laguna magacaabo The Mask. Soo dhowaada. Filimku wuxuu ku bilaabmayaa nin badda dhex quusaya oo isku dayaya inuu furto sanduuq duug ah oo ay dhagxaan dul saaran yihiin. Doon maraysa dusha sare ee badda ayaa iyana tuumbo culus oo bir ah ku soo dejinaysa biyaha dushooda. Balse mid ka mid ah silsiladihii hayay birta ayaa u go'ay oo birtii ayaa biyaha ku dhexdhacaysa iyadoo ninkii dilaysa. Sanduuqii ayaa isna furmaya iyadoo layna tusayo maaskaro ama wejigashi qadiimi ah oo biyaha kor u soo dul sabaynaya. Kadib waxaa layna barayaa nin lagu magacaabo Stanley Ipkiss oo ka mid ah shaqaalaha bangiga oo la haasaawaya gabar kala shaqaysa bangiga oo la yidhaahdo Maggie. Kadib saaxiibkiis Charlie ayaa u sheegaya in Maggie ay ka riwaayadaysanayso oo aanay dan ka lahayn, sidaa darteedna uu hawadeeda ka baxo. Wuxuuna u ballan qaadayaa inuu caawa ku casuumi doono goob lagu caweeyo oo lagu magacaabo Coco Bongo. Kadibna roob ayaa si kadisa u soo da'aya. Gabar qurux badan oo lagu magacaabo Tina ayaa soo gelaysa bangiga, iyadoo Stanley iyo Charlie ay isha ku xadayaan. Charlie ayaa u soo kaxaynaya dhanka miiska Stanley si ay ugala hadasho furista akoon cusub. Waxaana layna tusayaa kamarad ku qarsoon boorsadeeda gacanta in ay muuqaal ka duubayso bangiga gudihiisa. Xafiis meel kale ku yaala dhexdiisa waxaa layna tusayaa in muuqaalkaas ay ku daawanayaan laba nin oo lagu magacaabo Dorian iyo Fritis. Waxaanay u eg tahay in ay qorsheynayaan inay dhacaan bangiga. Fritis ayaa Dorian u sheegaya in madaxooda oo la yidhaahdo Nico ay tahay inuu ansixiyo howlgalka. Laakiin Dorian ayaa u sheegaya in ay wax isbedeleen oo uu hadda isagu hawsha la wareegay. Stanley waxa uu tegayaa goob garaash ah oo baabuurta lagu hagaajiyo. Laba makaanig oo goobta haysta ayaana u sheegaya in aanu gaadhigiisii hadda diyaar ahayn. Sidaas darteed waxa ay siinayaan baabuur duug ah oo ay u yaqaanaan Loner si uu u sii kaxaysto caawa. Stanley waxa uu imanayaa goobtii baarka isaga oo keligii ah, baabuur duug ah oo iskaraacayana wata. Waxaanu bannaanka kula kulmayaa saaxiibkii Charlie oo wata laba gabdhood. Charlie ayaa siinaya gaadhka waxoogaa laaluusha si uu u soo galo, laakiin uma oggolaanayaan Stanley inuu galo gudaha oo dibadda ayay u soo tuurayaan. Kadibna Tina ayaa imanaysa isagoo Stanley dhiiqo lugaha kula dhex jira, wuuna ka dhacayaa isagoo ka xishoonaya. Kadibna keligii ayaa iska baxaya isaga oo wata Lonerkiisii qiiqa badnaa. Kadib marka uu dul marayo buundada waxaa ka xumaanaya gaadhigii. Inta uu ka dego ayuu u dhaqaaqayaa dhanka buundada wuxuuna arkayaa wax u eg meyd oo dul sabaynaya biyaha. Wuuna ku cararayaa si uu u caawiyo. Laakiin waxa uu ogaanayaa inaanu meyd ahayn ee uu yahay qashin. Qashinka dhexdiisana waxa uu ka helayaa maaskaro alwaax ka samaysan oo la yaab leh. Stanley waxa uu imanayaa gurigiisa isaga oo wada qoyan. Islaantii guriga lahayd oo lagu magacaabo Mrs. Beanman ayaa soo baxaysa oo ku qaylinaysa maadaama uu daaradda ka qooyay. Marka uu soo galo qolkiisa, aygiisa oo lagu magacaabo Milo ayaa ku soo boodaya si uu u salaamo. Intaas kadib waxa uu daawanayaa waraysi TV-ga ka socda oo lagu waraysanayo dhiktoor lagu magacaabo Dr. Newman oo ku saabsan in dadku maaskarada ay u xidhaan si ay sarbeeb ahaan isku qariyaan shakhsiyadooda dhabta ah. Stanley ayaa kor u soo qaadaya maaskaradii uu soo helay si uu u fiiriyo. Waxa uu saarayaa wejigiisa, balse si lama filaan ah ayuu ugu dhegayaa wejigiisa. Stanley ayaa mar kaliya qolka ku dhex wareegaysanaya sida duufaanta, halka eygiisina uu dhuumanayo. Marka uu Stanley istaago oo uu joojiyo wareeggii, waxa uu isku beddelayaa shakhsi cajiib ah oo weji cagaaran leh laguna magacaabo The Mask. Qolkiisa ayuu ka soo degayaa, balse marka uu ag maraya albaabka islaantii Beanman, saacad alam ah oo qaylinaysa ayaa jeebkiisa ka soo boodaysa. Wuxuuna damcayaa in uu damiyo isaga oo isku dayaya inuu ku dhufto dubbe aad u weyn. Islaantii ayaa soo baxaysa, isla markaa ay indhaha ka qaadana qaylo ayay afka furanaysaa. Kadibna waxa ay isku dayaysaa in ay toogato, balse dabaqa ayuu ka boodayaa isagoo ku dhacaya waddada hoose, isaga oo sida warqadda u fidsan. Waddada ayuu iska soo fujinayaa, kadibna baabuur ayaa hoonka u garaacaya. Balse isna inta uu sameecad weyn la soo baxo ayuu kaga dhawaajinayaa hoon aad u dheer oo gaadhigii muraayadaha ka qarxinaya. Kadibna waxaa ku soo baxaya koox budhcada ah oo raba in ay baadhaan, balse waxa uu ku cararayaa meel luuqa iyaga oo ka daba cararaya kana dabagelaya goobtii. Laakiin waxay arkayaan isaga oo si farshaxan leh isugu xidhxidhaya buufin, ilaa uu mid ka mid ah ka dhigo qoriga dhashiikaha oo uu rasaas dabada u qabto. Kadib waxa uu tegayaa goobtii garaashka ahayd ee gaadhiga ka habsaamiyey si uu shaqo uga soo qabto labadii makaanig ee beenaalayaasha ahaa. Aroornimadii xigtay, Stanley sariirtiisa ayuu si caadi ah uga soo toosayaa wuxuuna xasuusanayaa dhacdooyinkii xalay dhacay. Kadibna waxa uu u soo cararayaa dhanka muraayadda, waxaanu naftiisa ku qancinayaa in ay ahayd riyo oo uu hurday. Kadib waxaa albaabkiisa soo garaacaya dembi baadhe lagu magacaabo Mitch Calloway oo wax ka weydiinaya dhibaatadii xalay ka dhacday xaafadda.
Stanleyna waxa uu u sheegayaa in aanu waxba maqlin, balse waxa uu ku xaqiiqsanayaa hadalkii dembi-baadhaha in xalay wixii dhacay aanay riyo ahayn. Waxa uu arkayaa in uu shaqada ka daahsan yahay. Ka hor inta aanu shaqada u bixinna, waxa uu ka tuurayaa maaskaradii daaqadda, laakiin muu arkaynin in ay dib ugu soo noqonayso qolkiisa marka uu ka sii baxayo. Stanley waxa uu soo gaadhayaa goobtii shaqada. Saaxiibkii Charlie ayaa weydiinaya halkuu aaday xalay. Kadibna maareeyaha bangiga ayaa isna ku canaananaya Stanley sababta uu shaqada uga soo daahay. Ninkii gaangiska ahaa ee Dorian waxa uu u tegayaa booskiisii Nico, waxaanay u eg tahay inuu Nico og yahay inuu Dorian qorshaynayo inuu ka dulguuro, waayo waxa uu u sheegayaa in uu magaalada iskaga tago haddii kale shaqo laga qaban doono. Habeenkii xigay, Stanley waxa uu arkayaa xayeysiis wargeys oo sheegaya in Tina ay caawa ka heesayso kalaabka Coco, waxaana ku soo dhacaysa fikrad si uu jaaniskaas uga faa'iidaysto. Maaskaradii ayuuna mar labaad gashanayaa, sidii hore si la mid ah ayaanu isku beddelayaa. Wax lacag ah ma haysto, laakiin waxa uu hayaa markan dhakadii uu ku xallin lahaa. Kooxdii Dorian ayaa iyaguna markan diyaar u ah in ay bangiga dhacaan, balse ninkii maaskarada ayaa mar keliya soo jabinaya albaabka bangiga, oo sida dabaysha dabadda ula soo boodaya isagoo kiish lacag ah xambaarsan. Halka burcaddii Dorian ay faramadhnaan kala tegayaan goobta marka ay boolisku soo gaadhaan. Kalaabkii Coco waxaa gaadhi limousine ah oo aad u kala jiidan ka soo degaya ninkii maaskarada. Inta uu lacag hawada u saydhiyo ayuu gelayaa kalaabka. Goobta cawayska dhexdeeda, Tina ayaa soo baxaysa iyadoo si heer sare ah u labisan oo heesaysa. Ninkii maaskarada ayaa isna si waalan u daawanaya, balse waxa uu soo kacaya dhankii kooxdii muusikada isaga oo u beddelaya in ay garaacaan muusig kale oo heer sare ah. Kadibna waxa uu ciyaarsiinayaa Tina oo uu far ku wareejinaya. Kooxdii Dorian u diray in ay bangiga soo dhacaan ayaa soo noqonaysa oo u sheegaysa inuu bangigii qof kale dhacay oo uu uga horreeyey, wixii yaallayna qaatay. Mid ka mid a kooxda burcadda ayaa farta ku fiiqaya ninkii maaskarada oo xagga hoose qoobka ciyaar ku dheelaya, isaga oo Dorian u sheegaya in uu ninkaas yahay ninkii lacagta ka hor qaatay. Nin ka mid ah tuugadii ayaa tooganaya ninkii maaskarada, isna waxa uu iska dhigayaa qof dhintay, balse iyaga oo rasaas ooda kaga qaaday si ay u hubiyaan in uu dhintay ayuu isagoo boodboodaya goobta ka baxsanaya. Kadibna waxaa goobta imanaya dembi-baadhihii Calloway oo ay la socdaan koox boolis ahi, wuxuuna xidhayaa Dorian iyo tuugadiisii. Calloway waxa uu sidoo kale dhulka ka helayaa gobol yar oo ka mid a bijaamo qadiim ah oo Stanley leeyahay. Aroornimadii dambe, isagoo Stanley hurda sariirtiisa oo gashan bijaamadii hurdada, ayaa waxaa albaabka ku soo garaacaya dembi-baadhe Calloway. Stanley waxa uu aadayaa armaajada si uu u soo qaato dhar uu xidho, balse lacagtii bangiga ayaa armaajada ka buuxda oo dhulka ku soo wada daadanaysa. Ugu dambayntiina wuxuu in yar furayaa albaabka si uu ugu jawaabo Calloway kadib markii uu lacagtii yara habeeyey. Calloway si toos ah ayuu u soo soconayaa isagoo Stanley weydiinaya dhacii bangiga iyo ninkii maaskarada. Dhanka kale, aygiisii Milo ayaa isku dayaya isna inuu furo armaajada. Muuqaalka xiga waxaa la ina tusayaa Dorian oo la hadlaya tuugo qol ku shiraysa, isagoo u ballan qaadaya inuu siin doono $50,000 qof kasta oo u keena ninka maaskarada. Mar kale iyo bangigii, Stanley ayaa imanaya iyadoo booliskuna ay wadaan baaritaankooda. Maamulaha ayaa isna sidii caadada u ahayd ka hor yimi Stanley isagoo ku qaylinaya maadaama uu soo habsaamay. Laakiin markan, Stanley ayaa isna mar qura intuu soo istaago ku qaylinaya maareeyaha, kadibna waa uu iska baxaya. Charlie iyo Stanley oo wada hadlaya ayaa waxa u soo gelaysa Tina, isagoo Stanley xagga sare u kaxaynaya. Waxaanay weydiinaysaa cidda uu yahay ninkii maaskaradu. Waxa ay u muuqataa in ay ka heshay. Stanley ayaa u sheegaya in uu garanayo, lagana yaabo inuu u ballamiyo si ay ula kulanto. Kadibna inta ay dhabanka ka shumisa ayay iska baxaysaa. Stanley waxa uu qaadayaa maaskaradii si uu u soo tuso ugana warramo Dr. Newman, isagoo u sheegaya inuu u eg yahay maaskaradii khuraafaadka ahayd ee dadkii hore aaminsanaayeen in ay sixir wadato. Waxa uu damcayaa in uu digtoorka tuso sida ay u beddelayso oo waxa uu gelinayaa wejigiisa, laakiin wax isbeddelahay ma dhacayo. Dhakhtarkuna waxa uu u qaadanayaa in ay ninkan lambarra ka khaldan yihiin, wuxuuna u sheegayaa in markii hore iyo markuu xidhay midna aanay waxba iska beddelin. Stanley waa uu iskaga tegayaa dhakhtarka waxaanu waddada ka qabsanayaa taxi iyada oo Calloway iyo Doyle ay dusha ka ilaalinayaan. Waxaanay ka soo daawanayaan meel u dhow isaga oo Stanley fadhiya barxadda. Tina ayaa iyana u imanaysa oo la soo fadhiisanaysa, laakiin Stanley waxa uu dareemayaa deganaan la'aan. Wuxuuna u sheegayaa in uu ka tegayo inta aanu imanin ninkii maaskaradu. Waxa uu ka daba wareegayaa kan yar oo meesha ku taalla, isagoo dhanka kale kaga soo baxaya isagoo isku beddelay ninkii maaskarada. Wuxuu isku dayayaa in uu shumiyo, laakiin waa ay ka foorarsanaysaa, waayo ilkahani wax loo dul qaadan karo oo la shumin karo maaha. Markaas kadibna waxaa ku soo baxaya Calloway iyo Doyle iyo askar kale, kuwaas oo xidhaya ninkii maaskarada.
Dhanka kalena xafiiska wargeyska, maamulaha wargeyska oo lagu magacaabo Murray ayaa weriye Beegi u sheegaya in ay boolisku qabteen Stanley, waxayna u sheegaysaa inay runtii sheekadaas aad ugu baahan tahay, sidaas darteedna waa uu u oggolaanayaa. Waxaa dib laynoogu celinayaa barxaddii lagu qabtay ninkii maaskarada, waxaana layna tusayaa 2 askari oo baadhaya, iyaga oo ka soo saaraya wax kasta oo lala yaabo. Xataa waxa ay ka helayaan sawirka xaaska dembi baadhe Calloway. Ninkii maaskaradu waxa uu si degdeg ah oo aan la fahmi karin ugu beddelayaa jeebadii ku xidhnayd 2dii askari ee Calloway iyo Doyle ka hor inta aanu u cararin albaabka. Balse albaabkii ayuu haddana dib u xidhxidhayaa, iyadoo layna tusayo in askartii oo dhammi ay qoryo la hor taagan yihiin oo ay dibadda ku sugayaan. Kadibna inta uu dharkii si kedis ah u beddesho, ayuu bilaabayaa inuu sameeyo qoobka ciyaar. Kadib waxaa lagu tusayaa in dhammaan booliskiina ay bilaabeen heeso iyo qoobka ciyaar la socda laxankiisa. Calloway iyo Doyle ayaa ka soo baxaya goobtii barxadda oo qoobka ciyaarkii kala dhex gelaya, isagoo ninkii maaskaraduna ka baxaya meel luuq ah oo baxsanaya. Stanley isaga oo iska siibaya maaskaradii ayaa waxaa ku soo baxaysa wariyihii Beegi oo baabuur wadata, uguna yeedhaysa inuu soo fuulo. Markuu sidaas u fuulana si xawli ah ayay u dhaqaajinaysaa, iyadoo ay booliskuna rasaas ka daba ridayaan. Hadda waxaan aragnaa Stanley iyo Beegi oo fadhiya xarunta wargeyska lagu kaydiyo oo wada hadlaya. Waxa ay u sheegaysaa sida uu ugu weyn yahay, laakiin run ahaantii waa been, waayo waxa ay kaga beddelatay $50,000 Dorian, kaasoo isna goobta soo gaadhaya isaga iyo tuugadiisii. Waxa ay u kaxaynayaan dhanka makiinadda daabacaadda, iyaga oo halkaas ka soo laalaadinaya ilaa iyo uu uga sheego Dorian sida loo isticmaalo maaskarahan. Dorian ayaa gashanaya maaskaradii oo isna isku beddelaya wuxuush aad u fool xun. Tuugadii Dorian waxa ay Stanley u kaxaynayaan gurigiisii si ay u soo qaataan dhammaan lacagtii bangiga, iyada oo eygiisii Milana uu daawanayo. Eygiisii waxa uu arkayaa Stanley oo gaadhiga hoostiisa ku xidhxidhan, kadibna si dhuumasho ah ayuu uga soo baxayaa albaabka. Markay gaadhiga si xoog ah u kaxeeyaanna eygii Milo waa uu daba cararayaa gaadhigii ay wateen. Waxa ay soo hormarayaan saldhigga iyagoo ku hor tuuraya Stanley Calloway hortiisa. Callowayna gudaha xabsiga ayuu dhigayaa oo wuu xidhayaa. Eygiisii Milo waxa uu soo istaagayaa daaqadda hoose ee qolka uu ku xidhan yahay Stanley. Tina ayaa iyana u imanaysa saldhigga si ay u soo booqato Stanley, waxaanay u sheegaysaa in uu isagu yahay dhab ahaantii qofka ay jeceshahay ee aanu ahayn ninka maaskarada. Marka ay ka tagto, tuugadii Dorian ayaa eryanaysa. Stanleyna daaqadda ayuu ka fiirinayaa. Dorian ayaa soo qabanaya Tina, wuxuuna saarayaa baabuurkiisii. Stanley waxa uu ku guulaysanayaa in eygiisii uu kor u soo boodo oo uu daaqadda soo fuulo. Waxaanu u dirayaa inuu furaha uga soo xado sarkaalka gaadhka, waanu soo qaadayaa. Sidaas ayuunu ku baxsanayaa isagoo qaadanaya baaskooladii askariga. Dembi baadhe Calloway ayaa soo gelaya, isagana waa uu sii afduubanaya, waxaanay u baxayaan si ay u raadiyaan Tina. Hadda waxaan arkaynaa goobtii cawayska ee Coco ee uu iska lahaa booska Dorian ee Nico. Waxaa la jooga maayarka magaalada oo lagu magacaabo Mayor Tilton iyo xubno kale oo ka tirsan golaha deegaanka. Sidoo kale Stanley saaxiibkii Charlie ayaa isna goobta ka shaahaya. Dorian oo gashan maaskaradii iyo tuugadiisii ayaa albaabka soo jabinaya, waxaanay dagaal kala dhex dhacayaa iyaga iyo ciidamadii Nico. Nico ayaa tooganaya Dorian, laakiin maaskarada ayaa ka difaacaysa, oo rasaastii uu afkiisa uu ku ururiyay ayuu dib ugu soo weerarayaa Nico oo uu halkaas ku dilaya. Dhanka bannaanka, Stanley oo uu u afduuban yahay Calloway ayaa gaadhi ka soo degaya oo gudaha soo gelaya, isaga oo baaskooladiisii wata. Kadib waxa uu weerarayaa mid tuugada ka mid ah oo uu qori ka qaadanaya, waxaanu u dhiibayaa saaxiibkii Charlie. Waxa uu arkayaa Dorian oo maaskaradii xidhan oo meel ku xidhaya Tina, isaga oo bambo ku ag xidhaya kuna buuxinaya 10 daqiiqo. Mid ka mid ah tuugada ayaa soo qabanaya Stanley oo u dhiibaya Dorian. Eygiisii Milo ayaa isna daaqadda gaadhiga iska soo furaya oo gudaha soo gelaya. Iyadoo Stanley ay tuugadu gacanta ku hayso, ayaa Tina waxa ku soo dhacaysa fikrad aad u cajiib ah. Waxa ay ka codsanaysaa Dorian in uu markii u dambeysay sii shumiyo, laakiin wejigan foosha xun uu iska yara siibo si uu u dhunkado, waayo waxa ay rabtaa in uu shumiyo Doriankii hore ee ay jeclayd. Sidaa darteed waa uu iska siibayaa maaskaradii. Marka uu damco inuu shumiyo ayaa ay laad kaga dhufanaysaa maaskaradii oo ay hawada u duulaysaa, iyadoo qof waliba uu isku dayayo inuu qabsado. Laakiin aakhirka waxaa qabanaya eygii Stanley. Stanley ayaa ku amraya eygiisa inuu cararo, isagoo isku dayaya inuu xadhigga ka furo Tina, balse waxa weerar ku soo qaadaya Dorian. Mid ka mid a tuugada ayaa isku dayay inuu eygii lugaha qabto, laakiin eygii ayaa gashanaya maaskaradii oo isna isku beddelaya ey yar oo dagaalyahana. Stanley ayaa garaacaya Dorian, kadibna waxa uu u yeedhayaa eygiisii, isaga oo kala baxaya maaskaradii. Balse mid ka mid a tuugadii ayaa tooganaya maaskaradii oo waxa ay ku daba dhacaysaa gidaar ka dambeeya Stanley, isagoo isaguna ka daba boodaya.
gidaarkii ayay rasaas ku ridayaan, laakiin Stanley oo maaskaradii gashan ayaa ka soo baxaya gidaarka gadaashiisii. Marka ay damcaan in ay rasaaseeyaan mar labaadna, Stanley ayaa la soo baxaya 2 qori oo aad u waaweyn. Nimankii tuugadaha ayaana meesha ka yaacaya, iyadoo aan gadaal ka ogaanayno in qoryihii uu la soo baxay ay ahaayeen kuwo beena. Tina ayaa u yeedhaysa ninkii maaskarada si uu u badbaadiyo, waayo bambadii ayaa qarxi rabta. Kadib inta uu af aad u weyn kala qaado, ayuu afka gashanayaa bambadii oo calooshiisa ku dhex qarxaysa. Isna afka ayuu qiiq iyo olol yar ka soo daynaya, laakiin waa uu nabad qabaa. Dorian ayaa midi ula soo baxaya, laakiin eygiisii ayaa u ciyaya si uu uga digo. Kadibna geed u dhow ayuu ku sawirayaa falaashta musqusha oo kale, iyadoo isku beddelaysa falaash weyn. Kadibna Dorian ayuu biyaha raacinaya. Stanley waxa uu iska siibayaa maaskaradii, laakiin waxaa si kadisa u soo gelaya booliskii si ay tuugada u xidhaan. Dhanka kalena waxaa jooga dambibaare Calloway oo raba inuu xidho Stanley, balse waxaa soo kala dhex gelaya Mayor Tilton. Calloway waxa uu u sheegayaa maayarka in uu Stanley yahay ninkii maaskarada, laakiin maayarka ayaa u sheegaya in ninkii maaskaradu uu ahaa Dorian. Stanleyna uu yahay geesigii ka soo gaadhay oo uu badbaadinayay iyaga, isaguna uu indhihiisa wax walba ku arkayay. Ugu dambaynta filimka waxaa layna tusayaa Stanley, Tina, saaxiibkii Charlie iyo eygiisii oo gaadhi saaran, iyada oo Tina ay webiga ku tuurayso maaskaradii, iyadoo saaxiibkeed ku dhegaysa. Saaxiibkii Charlie ayaa isna waxa uu wataa qorshe kale, oo waxa uu webiga ka dabagelayaa maaskaradii, balse eygii Stanley ayaa ka hor fadlan nagu soo biir oo subscribe taabo si aad ula socoto muuqaallo kale oo badan oo sidan oo kale ah. Beelkana furo si aad ugu noqoto dadka ugu horreeya ee ay soo gaaraan muuqaaladu. Sidoo kale muuqaalkanna like u dhaaf si aad nooga caawiso inuu kanaalku sii faafo.